sideedaba qaanuunku wuxuu ogol yahay qof kasta inuu xaq u leeyahay inuu helo qareen helitaanka qareenka qof kasta oo xaq u lahaanayo waxa loo kala qaadaa labo mid ka timaada xagga dawladda oo xafiis ama maxkamadi ay siiso oo la yiraahdo avocado di official dhaha xafiis dawladeeda u magacaabayo oo maxkamadda ah midna waxa waaye qofka asaa kari karo oo uma baahna inuu helo in loo qabto qareen uma baahna waxa dhacday marka mas'aladan ayada ah ma ahan mas'alo u baahan in Cabdiraxmaan loo qabto qareen wuxuu leeyahay qaanuunka qofka qareenka loo qabanayo waa inuu dhaqaale ahaan uu sabool yahay rabitaankiisana inay ku timaado markaa fiirisid mas'aladan labadiba ma waafaqsana waxaa dhacday marka maxkamadda markay isku dayday inay qareen u qabato annaga ka qareen ahaan waa aan ka jawaabnay waxaan la xiriirnay ee aan la kulannay cidda aan rabno inaan qareenka u noqonno maxkamadda horteedana aan ka difaacno intaa markaan ka gudbo qofka qareenka aad ka noqonaysid waa in uu maxkamadda horteeda joogaa waa in dacwadda la furaa waa in xafiiska xeerlaalinta maxkamadii ay tahay mas'aladan marka waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed uga faa'iideeyo anoo fursadan u helay Cabdiraxmaan Cabdishakuur mas'alada maxkamadda gobolka lagu galay oo tii hore ahayd waxay ahayd horgeyn middan dambe racfaanka laga soo qaatayna isla horgeyntii wixii ka soo baxay ayaa racfaan laga qaatay therefore Cabdiraxmaan kiiskiisa uma baahna qareen waa horgeyn waay markii qaanuunka la dhaho laakiin annaga hadday nagu qasabtay xaaladda iyo ma garanaysaa si loo gaaro danta guud ee cadaaladda waxay qasab nagu noqotay ka qareen ahaan inaan ka turjumno codsiga maxkamadda racfaanka qoraal ahaanaan kaga turjumnay wayna naga qabteen waa ay aqbaleen waxaan sugaynaa qoraalkeennii in ay ogolaadaan ama ay ka soo jawaabaan markay jawaab ka bixiyaan markaas ka bacdi ayaan maxkamadda racfaanka ka hadli lahayn wixii ka soo baxay laakiin cilladdu waxay taagan tahay in aan sida dadka caadiga oo kale saxaafadda aan ka helno saas iyo saas iyo saas iyo saas ayay maxkamadda u kala dhigto qoraal ka soo baxay waxa uma hayna annaga sida idinka aydnaan u haynin oo kale aan u haynaa sharci yaqaan ahaanna waxa annaga naxadaynayo waxaynaan arkin ama aynaan ogeyn inaan ka hadalno marka tan dambe waa mid ururka dib uu iskaga imaan doono talaabo ka qaadista ama haddii aan shaxmarin ay soo baxdo ama ganaax hadduu soo baxo ururka ka fadhiisin doono ururkana waxa uu ka soo saari doonaa jawaab sida sheegtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur qudhiisa wuxuu sheegay inuusan maxkamadda hortageenin sharci ahaanna waxa sheegtay in hortagid ay tahay oo arintan saas ay tahay marka sida arintan dhinacan barbar socota tusaale ahaan Cabdiraxmaan uu sidaas leeyahay maxkamadda racfaankana ay si hor dhacaad wararka baraha bulshada iyo ay eedeymaha noocaas jeedinayso sidee arintaas xal loo gaari karaa aragti ahaan horta ciladan haysato waxa waaye siyaasadii iyo sharciga isku qasan annaga wixii siyaasadda waxaan u daynaa siyaasiyiinta laakiin markay noqoto mas'ala qaanuuniyan ama sharciga marka laga hadlayo waxa waaye qoraaladii maanta aan idin siinay
ee aan shalay qornay ee aan xafidnay aan diidnay ilaa meesha aan ugu talagalnay ay ka gaarto inaanan la isticmaalin qoraalladaas waxaa ku qoran asbaabta keeni karto in annagu aynaan mathali karaynin cabdiraxmaan cabdishakuur maxkamaddana way naga garawsatay way naga aqbashay waa ay naga qabatay waxaa kuu soo haray kiiskan cabdiraxmaan cabdishakuur waxa lagu eedaynayo waa siyaasad annaguna ma nihin qareen siyaasadeede waxaanu nahay qareen sharciyeed marka wixii sharci ah waa qaadanaynaa waanu ku dhaqmaynaa annagaa ehel u ah sharciga wixii siyaasad ah annaga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cid kale hadday wax kala dhexeeyaan siyaasad ahaan jawaab ma ka bixin karno maxkamadda racfaanka sida wararka hadda hordhacaan ku helayno inkastoo aad sheegtay in waraaqad official aysan soo gaarin guddigiina ama ururkiina qareennada Soomaaliyeed haddana waxaa jirtay in laydinku eedeynaya inaad hawshii laydin idmaday aan qaban oo aqaabna laydin soo jeediyay marka bal arrintaas sidee ku wajahaysaa okay waxa waaye ururka qareennada sidiisaba marka la rabo in la anshax mariyo ama marka la rabo in tallaabo laga qaado ururka wuxuu leeyahay xeer hoosaad asaga uu isku maamulayo wixii ciladahay ku yimaado wuxuu ku saxaa sharciga ururka u dhisan ayaa lagu saxayaa qareenka la yimaada ciladeeda waxaa ku soo haray hadday timaado taxadar darro oo ah haddii qareenka ay u ballansanay dacwad ciqaab ah dacwadaasi ciqaabta ahaydna ay imaan weyso inuu ka soo qayb galo waxaa la fiirinayaa sabab macquul ah oo maangal ah inuu la imaan kariyo hadduu la yimaado sabab maangal ah oo macquul ah waxaa laga yaabaa dacwadaasi in dib loogu dhigo oo la raaciyo waqti kale haddiise ay dhacdo ay maxkamaddu u aragto dib u dhaciisa ee la rabay qofkii uu difaacay shalayna oo wakaaladii ka qaatay in uu mathalayo uu ka saxiixday ama xafiis u magacaabay ee uu raalli ka noqday ee laga saxiixay warqadii kala saxiixdeen ee sharciga hortiisa uu ka difaacayo taas ayada ah waxa waaye xeerka habka ciqaabta qodobka 16aad ka hadlaayo waa dacwad dulucdeeda laga hadlaayo ay socoto dhinaca la difaacayo iyo dhinaca kalena ay raalli isaga yihiin qaab xafiis ama qaab heshiisba mas'aladan mas'ala ka baxsan waaysan kuugu sheegay anshax marinta qareenka ama waxyaabahaas oo kale markay dhacaan ururka qareenka loo celinaa ururka qareenka mas'uuliyadda qaadayo asaga qareenkaasi wixii la gudboon marinayo waxaa jirta marka inaan mid yar أنا أوفى إذا سنة فرصة يونيفرسال مدير إن كير هذا محاك الصوب بحكر محكمة ده رعفان كي أنا وحن آمن سنة هاي هدي أي واحد الصوب حان إن أو شرعي مثل ماما أن شرعي الراعي أو شرعي النهجاي واحد صوب بحدونه هدي دعاء إني واحد صوب حان إن أنقاذن دونه أن أمر دونه بروسيس كشرعي أو نوف صحايو إن أن أمرنا قرالة حفيز كمامل كسب دفاع هذا